ganacsiga Soomaaliya la leh. Waa run Soomaaliya iyo China waxay xiriirka diblomaasiga samaysteen bishii markay ahayd December 14keedii 1960 anaka oo xorriyadda markaas muddo 5 bilood gaaraysa haysano. Soomaaliya waxa weeye wadankii ugu horeeyay bariga Afrika xiriir diblomaasiya la yeesha dalka Shiinaha. ilaa xilligaasna labada wadan xiriirkoodu aad iyo aad u fiicnaa wuuna sii xoogaystay sanadihii u dambeeyay siibana bishii dhaweyd ee September oo ay labada wadan xiriirkooda diblomaasiga ah kor u qaadeen oo uu noqday heer istiraatiiji ah. Waata marka la eego September waxaad sheegtay inuu kor loo qaaday xiriirka Soomaaliya iyo China. maxay waxyaabo ugu weyn la dul istaagay ee la rabo in horumar laga sameeyo labada wadan xiriirkooda? runtii waa su'aal aad u fiican oo runtii ka dhex guuxaya shacabka Soomaaliyeed maankooda. xiriirka labada wadan mar haddii kor loo qaaday macnaheedu waxa weeye in labada wadan ay iska kaashan doonaan waxyaabo fara badan oo horumarka labada dal uu ku jiro. siibana dhinacyo kala duwan oo ay ku jirto waxbarashada oo ay ku jirto dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha oo weliba ku jirto isweydaarsiga ganacsiga iyo kale oo fara badan. marka hadda insha Allah labada wadan ay ka shaqeynayaan oo ay ku guda jiraan sidii go'aankaas madaxdu ay isla gaadheen looga dhigi lahaa wax waaqaca ku dabaqan loona soo gaarsiin lahaa shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed. Waata 64 sano oo Soomaaliya iyo China xiriirka leeyihiin maxaa waxyaabo guul la sheegi karaa oo laga gaaray xiriirkaasi oo Soomaaliya ka faa'iiday xiriirka ay la leedahay China? horta walaal runtii xiriirka waagii hore 70-nadii 80-nadii waxa Soomaaliya ka faa'iiday in ka badan 84 mashruuc oo waaweyn oo development ah oo horumar ah oo laga fuliyay dalkeena oo ay ka mid tahay wadada isku xidha waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya oo ah ilaa maalinka maanta wadada ugu dheer ugu dhisan Soomaaliya. waxa kaloo ka mid ah stadium waxa ka mid ah tiyaatarka waxa ka mid ah isbitaal banaadir waxaasoo dhan waa mashaariic ay China ka fulisay dhulkeena. sanadahan dambena mashaariic kale oo fara badan oo horumar leh oo wadanka Soomaaliya laga dhex fuliyayna waa jiraan. sidoo kale deeqda waxbarasho sanad kasta iyadoo aan kala go'in ilaa hadda ardayda Soomaaliyeed way helaan deeq waxbarasho oo si bilaa lacag ah ay ku soo aadaan dalka Shiinaha ay wax kaga bartaan. halkee maraya dhinaca xiriirka ganacsiga ee Soomaaliya China marka la fiiriyo? Walaal su'aal fiican. xiriirka Soomaaliya iyo China ganacsiga aad iyo aad buu u xoogan yahay. China waxay ku jirtaa wadamada ugu horeeya ganacsiga Soomaaliya la leh. haddana ganacsiyada Soomaaliyeedna waxay ku guda jiraan in ay xiriirkaasna ay ka dhigaan mid labada dhinac u kala socda. waayo waagii hore waxaa xoogaa yara badnayd alaabta laga soo dhoofiyo China ee Soomaaliya la keeno. laakiin hadda wixii ka dambeeya waxaa laga shaqeyn doonaa insha Allah tacaala in wax soo saarka Soomaaliya asagana la soo gaarsiiyo suuqweynaha China sidaasna ay Soomaaliya uga faa'iidaysato marketkaas aad u ballaaran. marka September laabano madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdi hogaaminayo ayaa gaaray China. halkaas waxyaabaha looga hadlo waxaa ka mid ah in labada dhinac xiriirkooda kor loo qaado iyo sidii dhinacyada iska kaashan lahaayeen dhinacyada horumarka marka la eego. shirkii Beijing marka la fiirsho Soomaaliya waxyaabo weyn oo guulaha ka soo hoysay halkee marayaan guulihii laga soo hooyay September? waa meel fiican bay marayaan. dhowr wasaaradood ayaa booqasho rasmi ah ku aaday Bakiin oo ku soo galay heshiisyo aad iyo aad muhiim u ah hirgelinta iyo fulinta heshiiskaas ka dhexeeya labada madaxweyne ku saabsanaa in kor loo qaado xiriirka labada wadan. iminkii haatan iyo wixii hadda ka dambeeyana waxaa laga shaqeynayaa qorshayaashii lagu fulin lahaa go'aamadaas laguna soo gaarsiin lahaa
horumarkaas iyo waxqabadkaas shacabkeena Soomaaliyeed. wata ambassador ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed ka dhageysanaysa warbaahinta qaranka fariincanka ayaa hawada u marinaysaa. والله فرينتان مرنيها وحوي China ودلوين Soomaaliyana ilaahay wuxuu ku manaystay khayraad aad u fara badan aynu ka shaqeyno oo aynu ka wada shaqeyno qaabkii aynu khayraadkeenaas iyo wax soo saarkeenaas uga faa'iideysan lahayn suuqan Chinese-ka ah ee runtii baahida weyn ay ka jirto dhinac kastaba ama ha ahaato xoolo ama ha ahaato wax la beeray ama ha ahaato khayraad kale oo dabiici ah inaan anagu warshadayno wax soo saarkeena oo aynu soo gaarino suuqyada caalamiga ah oo ka mid tahay suuqa China ah ay faa'iido noogu jirtaa marka taas insha Allah aynu ka wada shaqeyno ayaga laftigooda waxaan rabaa fariintan u diro inay tahay in ay waddanka ay dhex joogaan China in ay uga faa'iideystaan waxyaabo ka badan in ay alaabun ka soo dhoofiyaan inay teknolojiyada iyo horumarka ka jira dalkaas uga faa'iideeyaan dalkeena oo waxyaabaha ay soo dhoofiyaan